maalmaha labada shay ugu dambeeyay saan xogta ku helay waxa jira warar propaganda ah oo social media lagu baahiyay runtii ma jirto wax kiisa oo ku saabsan hablo kubsi geystay oo ka dhacay gobolka Maroodijeex arrinkaasina waa arrin propaganda oo lagu fadaxaynayo hablaha ama muwaadiniinta reer Soomaaliland gaar ahaan dumarka mana dhacaan kiisaskaasi mana arag mana maqal waxaana ila tahay inay yihiin dad ashkhas gaar ah oo runtii doonaya inay propagandeeyaan hablaha muwaadiniinta wax ka jiraan ma jiro dhammaan hay'adahan wada shaqaynta leenahay baarista kiis dacwadiisu ay soo gashay oo reportkiisu uu noo yimi oo jira ma jiro arinta waanu beenaynaa insha Allah kulli waxaan ugu waajibaa in cidda wararka propaganda faafinaysa hadii la aqoonsado in sharciga la horkeeni doono